waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar oo aan kaga diyaarnay dagaalada ka soconaya dalkaasi Itoobiya oo maalintii shanaad galay. Dagaalkan ayaa waxa uu dhexeeya ciidamada Amxaarada iyo kuwa federaalka Itoobiya iyo qoomiyado kale oo ka tirsan dalka Itoobiya iyo waliba kooxda TPLF oo dagaal xooggan kula jirta dalka Itoobiya. Dagaal xooggan ayaa waxa uu ka soconaya xuduudda u dhaxaysa Amxaarada iyo waliba Tigreega iyada oo maalintii shanaad halkaas ay ku dagaalamayaan. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii TPLF ay qabsadeen magaalooyinka Almaata iyo waliba Komer halkaas oo dagaalo qarar ay kula galeen Amxaarada iyo waliba maleeshiyaad kale oo la socday. Dagaalkan ayaa waxa uu ka soconaya magaalooyinkaasi iyada oo dad badan oo shacab la sheegay inay ku dhinteen kuwa kalena ay ku barakaceen. TPLF ayaa waxay sheegtay inay qabsanayso magaalooyinkaasi oo horey looga qabsaday iyaga oo sheegay in markii dagaalada lagu soo qaaday ay horey uga qabsadeen Amxaaradu. 29 sano ee la soo dhaafay ayay sheegeen inay haysteen maleeshiyaadka TPLF sida ay sheegeen Amxaaradu iyaga oo sheegay in dalkaasi horeba ay xoog looga qaatay. Markii ay la wareegeen kooxda TPLF magaalooyinkaasi Almaata iyo Komer ayaa waxaa soo rogaal celiyay ciidamada federaalka Itoobiya iyo waliba kuwa Amxaarada iyo maleeshiyaad la socday iyadoo halkaas dagaalo xooggan ay fooda isku dareen. Dagaaladan ayaa waxa ay ka soconayaan maalintii shanaad ay galeen oo magaalooyinkaasi xuduudda ku taasan iyaga oo aan waxba la isu reeban. Afhayeenka TPLF ayaa waxa uu sheegay in ay wax kasto ay ku qaadato ay dhulka Tigreega ay ka xoreyn doonaan buu yiri Amxaarada iyo waliba kooxo uu sheegay inay ku soo duuleen sida uu sheegay. Waanu xoreynana dagaalkana waan wadanaa buu yiri inta aanu ka helano Tigreega dhulkiisa ayuu yiri cadaalad lagu soo rogayo. Waxa uu sheegay in ra'iisul Itoobiya Abiy Ahmed uu sheegay inuu intaasi waxa uu ku daray afhayeenka kooxda TPLF inay wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan buu yiri ciidamada Itoobiya. Waxa uuna sheegay in ra'iisul Itoobiya uu xasuuq ba'an u geystay dadka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya isagoo shaaca ka qaaday inaysan marnaba u dulqaadan doonin in kooxda Abiy Ahmed in ay dagaal xooggan la galaan ama ay burburiyaan buu yiri shacabka Tigreega. Sharafta Tigreega waanu soo celin doonaa kadib inta aanu ka xoreynayna buu yiri dhulka Tigreega oo ay ku soo duuleen buu yiri Abiy Ahmed sida uu sheegay. Afhayeenka TPLF oo warbaahinta kula hadlay magaalada Maqale caasimadda gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya. Waxaa kooxda TPLF markii ay soo galeen muuqaalo laga faafiyay magaalada Almaata, Komer iyo magaalooyinka kale in ay sheegeen in ay ka xoreeyeen buu yiri oo dad badan halkaas ay ku dabaaldegeen. magaalada caasimadda ee Amxaarada ayaa waxaa ka socda abaabul xooggan iyadoo qoomiyadaha kale ay u habarwacdeen Amxaaradu iyagoo sheegay inay iska caabinayaan dagaalka Itoobiya ka socda. Ayaa la sheegayaa inaysan ku lug lahayn Oromadu oo ay sheegeen inaysan Oromadu dagaalkaasi ayna ku lug lahayn laakiin magaalooyinka kale ee kilimada ayaa la sheegayaa inay abaabul ka socdaan oo dowladda Itoobiya ay wado sidii ay u hubeyn lahayd kilimadaasi oo dagaal xooggan ay kula jiraan kooxda TPLF iyadoo TPLF la sheegay inay dagaal xooggan haddaba ku wado magaalooyinkaasi oo magaalo dhowr ay ka qabsatay ciidamada Itoobiya.